wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland Saleebaan Cali Kore ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay maareeyihii hore wakaaladda biyaha Burco Jaamac Maxamed Cali iyo maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha Burco loo soo magacaabay Cabdixakiin Maxamed Maxamuud. munaasabad ballaaran oo xilka kula kala wareegayeen labada maareeye ayaa ka qabsoontay hoolka wakaaladda biyaha Burco. xafladani ayaa waxa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Togdheer xildhibaano marti sharaf kale iyo sidoo kale shaqaalaha wakaaladda biyaha Burco. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay maareeye ku-xigeenka wakaaladda biyaha Burco Salaadiin iyo waxgaradkii ka soo qayb gashay xalfadani oo ka maqraati kacay waxqabadkii ballaadhna uu ka geystay wakaaladda muddadii uu xilka hayay maareeyihii hore wakaaladda biyaha Burco. haddaan marxaladaasi yar dul taago waa markii koowaad ee wakaaladda lagu kala wareejiyo xilka maareeyaha iyo labada maareey isbedelaya xilka wareejinaya muddo sanada ayaan wada shaqeynaynay wax badan baa noo wada qabsoomay ay ka mid tahay horumarinta biyo ballaadhinta wakaaladda biyaha iyo deyn uu la wareegay oo markaa ku dhow $300,000 wakaaladda hadday noqoto gaadiidkeeda hadday noqoto mashiinadeeda hadday noqoto ceelasheeda xaaladaas oo adag ayuu jaamac la wareegay waxaanu kaga gudbnay wada shaqeyn labadayada iyo shaqaalaha dhammaantood. maareeyaha xilka wareejinayana waanu hambalyeynanaa waa u ducaynaynaa waxaan leenahay halkaa tagtaba ilaahay waxa weeye ha ku barakeeyo. anigu jaamac waxaan isbarannay maalmihii loo soo magacaabay xilka waanu yar sheekaysanay wuxuu igu yidhi anigu inaan ka sii shaqeeyo wakaaladda biyaha aad uma jecli laakiin waxaan doonayaa sanad aan CV aan ka dhigto oo meesha nidaam iyo aan u sameeyo iyo wax la igu daydo ayaan doonayaa insha Allah taala in aan sii joogo. geesta kale waxa goobtaasi xilka lagula kala wareegay ka hadlay maayirka degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer oo soo dhaweeyay maareeyaha cusub sidoo kalena subootiyay maareeyihii hore wakaaladda biyaha Burco. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala Cabdixakiin isaguna waa nin dhalinyaro macaan in ilaahay halkiisii iyo meel ka sii wanaagsan uu noogu buuxiyay ilaahay baan ka baryay. tusaale waxa kuugu filan $270,000 oo sanad bixiyay intaas tusaale kuugu filan. hadalka maanta halkan wuxuu buu noqon doonaa hadii ilaahay ka dhigo sidii rag horeba ka dhawaajiyeen waa sagootis aynu sagootinayna maareeyihii hore wakaaladda biyaha iyo soo dhaweyn iyo dardaaran aynu u jeedinayno maareeyaha cusub. in dhalinyaro baa tahay CV-gaaga ay ku galaysaa mustaqbalkaaga ay anfacaysaa meesha imika aad ka tagtay meel ka sii khayr badanna ilaahay ku geeyay. maareeyaha cusub waxaan leenahay marka hore waxaan kugu soo dhaweynaynaa wakaaladda biyaha ee Burco iyo gobolka Togdheer magaalada Burco. waxaan runtii ilaahay kaaga baryaa inuu xilka lagu idmaday uu kuga asturo. iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay labada maareeye xilka la kala wareegayay waa maareeye Jaamac Maxamed Cali iyo sidoo kale maareeye Cabdixakiin Maxamed Maxamuud. maanta sanad laga joogo maalinta la wareegnay aanu jecelahay inaan information yar oo kooban sanadkaan joognay intii noo qabsoontay iyo wixii aan noo balan garaysnaayeen wali noo qabsoomin iyo inaan soo dhaweyno maareeyaha cusub ee maanta halkan igu xilka aan ku bedelayo. waxaad u joogteen oo aad goobjoog u haydeen wakaaladda biyaha oo halkan maanta aan ku wareejinayna wixii noo qabsoomay iyo wixii aan noo qabsoominba iyadoo deyn badan wakaaladda lagu leeyahay weliba dawladda oo baananka iyo dadka customerka ama dadka supplierka ee magaalada ay ku leeyihiin lacag xadigeeda aad u badan tahay. waxaanu kale la wareegnay wakaaladda biyaha oo aanay wax badan oo horumara oo la taaban karo maanta halkan ku soo bandhigi doona aanay u suurtoobin. waxaan mar labaad sagootiyeeyaa oo si sharaf leh oo karaamo leh oo hambalyo iyo kalgacal ku jira ku sii sagootiyeeyaa
maareeyihii hore jaamac oo ka soo sheekeeyey taariikh ama background aad u wanaagsan oo wakaaladda sanadkii ama xilligii qaamlaha uu joogay kale uu horumar gaarsiiyey annaguna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahayna ka baryaynaa halkaa kuwii ka sii wada horumarka ballaaran oo taaban kala gaarsiiya oo fiishankooda iyo miishankooduba dheeraada in ilaahay naga dhigo. munaasabadani waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka iyo biyaha Somaliland Saleebaan Cali Koore oo dardaaran u soo jeediyay maareeyaha cusub sidoo kalena sabootiyay maareeyihii hore wakaaladda. inta leeg baan bixiyay wax badan ba uma baahna in la sharaxo deynta aan la wareegay waa intaasaan bixiyay horumar waxaan sameeyay intaa wax deynana ma gelin saddexdaa kelmadood yaa iigu filaaday warbixin rasmi ah aan ku gartay inuu yahay nin diyaar u ah inuu wax qabanayo ama wakaalad shaqaynaysa oo horumar samaynaysa inuu ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland ayaa xilkii u kala wareejiyay labada maareeye Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka Xuriyo, Burco.